www.sirarmedia.com. waxyaabihii ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa General Gabro jooga xamar baan xamar tigi waa intii waxaa 2007 July waxaa yimi Malaysia Sanawi xamar waayaan timinay dabadeedna nin xildhibaan ay waxaan tagnay barnaamij mastarkan tagnay nakeen dabadeedna markaan u tagnay algeedi airport kan tagnay nakeen airport kan tagnay markaan reception ka fadhiisano cabaar fadhinay aan loo sheegin wax meesha ka jira waan yaabo ilaa iyo meesha madaxtooyada ilaa iyo airportka Ethiopian ba marka qabsaday oo jooga wadada oo waan yaabo waxa meesha yani ciidanka ay taale cabaar ka bacdi baa gabar noo soo galay wuxuu yiri waxa soo degaysa diyaaradda hoos tagnay diyaaradda waxa ka soo degay gabdho yar wada qaaqaawan oo dharka gaabsita cabaar ka bacdi diyaaradda noo soo eegaynaa nin gaaban oo cad oo bidaar leh oo sidaas oo kala ayaa ka soo degay oo ninka xayaad ka jirta waa Malaysia Sanawi bartii baa laba laangaru salsaga ka qaatay iyo barnaamij sarko islaaha xatooyada qabteen cabaar ka bacdi 12 dowlad ma soo degay Abdullah Yusuf oo ka yimi Kenya halka waxa ka qaaday isagana gawaaridii Egerton maxay Afrikaanka oo dabadeedna kaari muraad lahaa buu galay sii raacay waxaan isweydiiyay waxa Sanawina uu laangaru sarka kaliya halka uga raacay madaxweyne waddankana uu raacay kaara dabadiisa dalka Ethiopian ba haysta waa in dalka ka yimi Addis Ababa oo kale ahaa oo dil dhalay yimi ayuu Sanawi uga dhignaa markaas oo kale waxyaaba iga ficiyay ka mid tahay maxaa lagu leeyahay marka aad ku watee heshiisiinta waxay ahayd in la laba galo Ethiopian haddii aan su'aal ku weydiiyo adigu waxa sheegtayna kamid ahayd dawladda federaalka markaas aad tagteen magaalada Muqdisho way kula tahay adiga fikrad ahaantaada in haddii aad tihiin dawladda idinkoo isku dhan maca baarlamaankii ra'iisul wasaarayaashii madaxweynihiina idinkoo leh inaad tagi lahaydeen magaalada Muqdisho idinkoon ciidamada Ethiopiana aysan idin garab socon way kula tahay inaad tagi lahaydeen haddii balaan la tagno marka lacagna waa la hayay warloodadiina dawladda waxay ka mid ahaayeen dawladda ku jireen lacag baa la hayay balaan baa la hayay waa la tagi karayay Sharif Xasan ba marka intaan dawladda hayn oo Nairobi ka soo duulutay isagoo xildhibaano wata cid wax yeeshay ma jirto waa hagaag waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo Telegrace waa maqlaysay Maxamed Ali Bilaal wuxuu carabka ku dhiftay in heshiisku ay ka mudan yihiin dawladda federaalka in la galo Ethiopianka wallahi Bilaal Maxamed Ali Bilaal waxa la rabay waxaan oo dhan uu hadda noo sheegayo iyo information kan markuu ahaa xildhibaanka iyo wasiir ku xigeenka dawladda inuu sheegaa la rabay maanta markii uu dawladii ka baxay oo ka soo horjeedsaday inuu doosaana ahayd iyo gabra haysta gabruhu markaas waa joogay dawladda waxa keenay Ethiopia waxa keenay ciidamo waxa keenay baarlamaankii keenay uu kamid ah waliba hadda hadii cajiladii la baaro waxa laga yaabaa xildhiga Bilaal oo gacanta kor u taagay inuu ka soo baxo marka inuu maanta nagu dhaho maxay ahayd ii sheeg dawladda Ethiopia haysata iyo kan iyo Soomaalida mushkiladda haysata historyga dib uma raacaan oo ma oga in record laga hayo wixii uu horay u galay hal marna wuxuu tagayaa sad to a uu tagayaa A to Z buu hal mar tagayaa marka waxa weeye Soomaaliya maanta Ethiopia way joogaan ciidamada Ethiopia ugu badan oo jooga way laakiin si Ethiopia Soomaaliya ma maamusho Soomaaliya waxay leedahay dawlad waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay prime minister waxay leedahay baarlamaan dawladda Ethiopia waxa lagu keenay heshiis marka Ethiopia su'aashan uu leeyahay Ethiopia baa wadanka haysata Ethiopia Soomaaliya ma haysato Ethiopia Soomaaliya waa dawlad ku timid heshiis ay la gashay dawladda federaalka waa baarlamaanka la mariyay dadkoo dhan baa la mariyay nimankan kulli la wada sheegayo mucaaradka ahu waxay ahaayeen nimankii baarlamaanka gacanta wada taagay Sharif Xasan wuxuu ahaa ninka dhan oo ra'iis baarlamaanku ah markii la marinayo
haddana wuxuu ku leeyahay Ethiopia horta waxa weeye xaqiiqada waa inaan u tagnaa ma ahan inaynu meel kale soo marno Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo nabad iyo magaalada wax jiro oo reality hadda inkirtid wax kala u tagaysa reality-gu waxa weeye Soomaaliya dawlad ku meel gaar ah ka jirta yes dawladdu ma shaqaynayso oo problem baa haysta dagaal baa ku socda dad baa la dagaalamaya sidee lagu joojin karaa dagaalka waxa lagu joojin karaa dadkan dagaalka wadaa inay dagaalka joojiyaan oo ay nabadda wax ka qaataan waa sababtaas darteed bay ahayd waxa prime ministerku iyo dawladdu dhan last 3 bilood oo soo dhaafay ay ugu mashquulsanayd in loo xalliyo arinta maxay ahayd sheeg u dhaxaysa labadooda haddana wali lagama quusano ma la gaarin meeshii ugu dambeysay lama gaarin heshiiskaas uu socda marka waxa weeye arrimahan iska dacaayadahan raqiiska ay leedahay dawladda Ethiopia haysata wadanka iyo kan baa haysata anigu waxaan u arkaa inay tahay arrin annaas iyo magaciisi iyo Soomaalida ninka markuu iska waayo dawladda arinadii buu markaas oo ay bilaabaa wali ma hayno nin dawladda inta ka tagay ka resign gareeyay uu wasiirkii jiriyo arrinta darteed qof kasta wuxuu qaylinayaa oo ama asmara tagaya ama magaciisi tagaya markii booski laga qaado ama uu kursiga ka tago may kula tahay hadii isbahaysiga dib u xoreynta Soomaalida iyo dawladda federaalku ay heshiiyaan inay baxayaan ciidamada Ethioopiyaanka wallahi bixidda ciidamada Ethioopiyaanku saad ogtahay Cabdinaasir waxa weeye waa process bay marayaan ciidamadan waa ciidamo yimid oo lagu keenay maxay ahayd sheeg dawladdu ay keentay process bay marayaan processkaas ayna ku baxayaan haddii Soomaaliya la heshiiyo Ethioopiyaanku waxa ay ciidamada Ethioopiyaanka u joogaan Soomaaliya oo sababa ama interest ma jirto ayagay u fiican tahay inay Soomaaliya oo nabada oo shaqaynaysa ay ka tagaan sababtoo sharaf bay ku helayaan iyo magac bay ku helayaan haday Soomaaliya oo nabada oo sharaf leh oo dhisan ay ka tagaan may kula tahay ciidamada Ethioopiyaanka oo dhibaatooyin badan ay ku soo gaartay gudaha magaalada Muqdisho oo dad badan ay uga dhinteen lacag badan uga baxday iyo qarashaad badan in ay iyagoon wax macnaha faa'iido ah oo kala taan ka helin ay kaliya ay intaasoo dhib u marayaan taas inay nabadeeyaan oo kaliya dadka Soomaaliya saad ula socotay Soomaaliya Ethiopia waxa u dhaxaysa 1 kilometer oo border aan leen 1 kilometer oo border ma haysano Soomaaliya Ethiopia ma haysato Soomaaliyana ma haysato borderka lacag ay ku ilaalsato Soomaaliya oo nabada interestiga ugu weyn ay ka helayaan waa Soomaaliya oo nabada in Ethiopia ay hesho maxay tahay faa'iidada ka helayaan faa'iidada ugu weyn way dawladda haday Soomaaliya ay nabad noqoto xiriir baa dhexmaraya tijaara dhexmaraysa Soomaaliya saad ula socoto waa 90 to 80 million way oo Ethiopia waa 80 million oo landlord oo aan dhul lahayn bad waxa weeye business bay rabaan inay la sameeyaan 10 million Soomaaliya waa 10 million oo businessman oo u baahan inay tijaaro la sameeyaan 90 million oo business marka arintaas waa arin process tabdiil baa ka dhaxdhaclay isbedel baa ka dhaxdhalanaya Ethiopia iyo Soomaaliya oo ah tijaari iyo nabad iyo adduunkii oo dhan baa Soomaaliya baa hadda business iyo tijaaro sameynaya East Africa Soomaaliya waxay ku taalaa meel istaraatiiji ah waxaan haysanaa 3333 kilometer oo coast waxaan haysanaa bad waxaan haysanaa beero waxaan haysanaa maxay ahayd sheeg resource mineral tira badan waxaan u baahanahay inaan caalamka oo dhan xiriir la sameeyno Ethiopia waxay ka mid noqonaysaa meelaha aan la sameynayno tijaarada iyo businesska iyo xiriirka haddii ay nabadda Soomaaliya ay degto dadkaasi ka mid noqonayaan haddii wax yar ka dhex galo dadka qaar waxay sheegaan in Ethiopia ay rabto in ay Soomaaliya ay kala go'do waxay dadka qaar sheegaan in Puntland ay si gooniyo ula xiriirto iyadan soo marin dawladda federaalka oo markaas heshiisyo u gooniyo ay la dhex marto ayro anagu rumors kama hadli karno reality ma rabnaa inaan ka hadlo Soomaaliya iyo Ethiopia maxaa dan u ah Ethiopia ma waxa dan u ah inay gobol la xiriirto Soomaaliya mise waxa dan u ah dawlad jirta oo xoog leh oo daris la ah oo East Africana
oo Horn of Africa oo nabada oo 1 kilometer ay xuduud la leedahay inay nabad noqoto oo markaas ay tijaaro iyo business toos la samayso miyaa dan u ah mise Soomaaliya oo burbursan oo dhibteeda iyo problemkeedii wadatay bay tuulo inay la xiriirto ana waxaan aaminsanahay